إبراهيم آدم حسين qalab kaashireerada waxaa laga isticmaalaa koonfurta Soomaaliya labada webi Shabeelle iyo webi Jubba inta u dhaxayso qalabkeena anaga ayaa sameysano waxaa ka mid ah shareerada ka mid ah waxaa ka mid ah yaambooyinka aan beeraha aan ku falano waxaa ka mid ah garweemanka aan ku qodano kanaalada aan ku baxsano oo biyaha waxaan soo saarano ayaan cunaa wax dibadda laga keenay anaga ma cunno shareeradan waxaa laga sameeyaa qoryo oo ka baxo baadiyaheena xeeri bay leedahay waa xeerida soorta aan ku cunno markay dhammaato waxaan ku bedelanaa qalabkan ayaan ku samaysanaa waa anaga waxaan hidaaya dhaqanka u leenahay waayo wax soo saarkeena ayay ka mid tahay shareerada waxay ka mid tahay looma garaaco jinka iyo nikiska iyo cayaaraha kaliya looma garaaco shareertan markaan anaga waxay bino tahay waxaan anaga ku madadaalino oon waqtiga aan ku gaabsano shareerada anaga waxay noo tahay astaan nabadeed dhaqankeenii hore maadaama beryahan laga gaabiyey anaga waxaan jecelnahay dhaqankeenii hore hidaha iyo dhaqanka aan kusoo dhaqma jirnay inaan dib u soo celino wax nagu gobaabiyo oo garab nagu sii haddaan helin aad baan kasii jeclaan lahayn shareertan waxaa lagu qurxiyaa gurbaan waxa la dhaho oo lagu sharaxo oo organkeed soo saaro ayaa jiro oon anaga oon ku naqaano haddaan wax idinka tusiyo heesaheeda xoogaa yar hadda muusiga ayaa idin taawanayaan waxaa ka mid ah heesaas oon markaan beerta falano oo muxuu gasna xanuuno noogno hawshan aan ku baashilinaa